boqolaal ka mid ah dhalinyarada Muqdisho ku sugan ayaa isugu soo baxay wadada dheer ee Maka al-Mukarrama oo qaybo ka mid ah difaacyo ay ka sameysteen ciidanka mucaaradka ee ka soo horjeeda muddo kordhinta loo sameeyay hay'adaha dawladda. dhalinyaradan oo maracad ku soo xirtay madaxa sidoo kalena wata calamo cad taasi oo ka turjumaysa nabad ayaan doonaynaa ayaa lu ka soo bilaabay agagaarka isgooska number 4 iyadoo ugu dambeyn socod ku yimid isgooska Dabka. dhalinyaradan oo socdaal dheer ku soo maray wadada Maka al-Mukarrama soona maray goobo ay ku sugan yihiin ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa dawladda dhexe oo markaasi ku sugan hareeraha laamiga wadada Maka al-Mukarrama. ugu dambeyn waxa ay isku yimaadeen halkan oo aan ku suganahay oo aan isgooska Dabka ka fogeen iyadoo ay ku sugan yihiin ciidamo ka soo horjeeda muddo kororsiga hay'adaha dawladda Soomaaliya ay u sameeyeen baarlamaanka Soomaaliya. haatan dhalinyarada ayaa markaasi calamada iyo sidoo kale maryo cad ay wataan waxay u ruuxayaan ciidamada mucaaradka waxayna farayaan inay qaataan nabadda. qaar ka mid ah dhalinyarada ayaa la hadlay warbaahinta Nation iyagoo markaasi ka warbixiyay ujeedada ay isugu soo baxeen. dhalinyaro isku soo abaabushay oo nabadda ka shaqeynaysay waxaan ka soo bilaabnay socod kilometer 4 ilaa waxaan ku nimid Siigaale oo meesha ay hadda ciidanka mucaaradka ay joogaan. waxaan soo marnay ilaa 3 control oo ciidanka dawladda ay joogaan. waxaan ka codsanaynaa dhammaan qaybaha kala duwan in macnaha kursiga miiska wada hadalka inay iskugu tagaan dhammaantooda. waxaan rajeynaa insha Allah in baaqeena laga turjumi doono. waxaan tagnay lambar 4 ilaa iyo wadooyinka weyn ilaa Dabka ilaa isku hormaadiyada meelaha ay ka jireen oo dhan ciidamada isku hortaagnaa soo marnay. dhammaanna waxaan rajeynaa markaan u tagnay way soo dhaweeyeen baaqeena si guudna in loo soo dhaweeyo baaqeena waa rajeynaa ay nabad dhacdo insha Allah. waxaan ku dhalanay qax iyo burbur iyo dagaal xabad ayaan intaan ku soo gaarnay waxaan rabnaa nabad yar oo aan helnay waayii ugu dambeeyay waxa magaalada Muqdisho ka socda qalalaasay iyo saruursi hub iyo dagaal ma rabno xabad iyo dagaal iyo qax maxaa la yiraahdaa xabadu waxay horseedaa nabadgelyo la'aan waxay horseedaa qax waxay horseedaa abaar waxay horseedaa macluul waxaan rabnaa nabadda inay dadku wada qaataan waxaan u baahanahay labada dhinac maxaa la yiraahdaa ii sheeg isku hor fadhiya dhinacyada waxaan u baahanahay inay maxaa la yiraahdaa magaalada nabadeeda sidaad ugu soo celiyaan maatidana ma rab inay qaxdo dadku waxa laga yaabaa inaysan afur haysan dad masaakiin oo guryaha kiri ugu jireen ayaan arkayna xal 9 saac oo habeenimo aad uga calool xumoonay marka waxaan u baahanahay miiska wada hadalka ku laabtaano. maxamed yaxya jiinow warbaahinta Nation Muqdisho.